Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ay saameynta darani ku yeelatay dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada dunida. Abaaraha daba dheeraaday iyo fatahaadaha soo noqda sanad walba ayaa ah tusaalooyinka muuqda ee sababay yaraanshaha cuntada, taas oo ciriiri gelisay nolosha dadweynaha. In ka badan 2 milyan oo ruux ayaa ku barakacsan gudaha Soomaaliya. Badankood waxaa guryahooda ka soo qaxiyay dhibaatooyin ay isbeddelka cimiladu ka mid tahay. Haddaba, beeridda dhirta ayaa ah mid ka mid ah hababka ugu waaweyn ee lagu yareyn karo cimilada dunida oo sii kululaanaysa, laguna dhimi karo wasakhowga hawada. Si taasi loo tijaabiyo, koox dhalinyaro reer Muqdisho ah oo barta cilmiga deegaanka iyo beeraha ayaa hadda bilaabay in ay geedo ku beeraan dugsiyada waxbarashada, dadkana ay ka wacyigeliyaan khataraha ka dhasha xaalufinta dhirta. anaga dalkeena maanta marka laga hadlo dhibaatada ugu weyn oo isbeddelka cimilada noo keento waxa waa in dhirta la jaro. haddii dhirta la jarana maxaa ka dhalanayo? haddii dhirta la jaro waxaa ka dhalanayo sanad walba dalkeena fatahaadii abaaraha ka dhaco. laakiin ma la fahansano waxa keenay waxa waaye dhirta la jarayo. dhirta haddii la jarane waxa imaanaya in abaaro badan ay dalka ku soo laabtaan. Dhalinyaradan oo isku xilqaamay ayaa muddo 2 bil gudahood waxay in ka badan 50 geed ku beereen goobo waxbarasho oo Muqdisho ku yaala. Waxayna tagaan iskuulada si ay ardada ugu wacyigeliyaan jarista dhirta. Wuxuuna qorshahoodu yahay in ay beeraan ilaa 10,000 oo geed sanadka dambe. sanada noo soo socota waxaa noo qorsheysan in qabano geedo gaarayo 10,000 oo geed ku beerno goobo waxbarasho. sababta oo tahayna waxaa waaye climate issue oo aad oo noo sii soconayo. that's why marka dhibaatadaas inaan ka hortagi karno aan isku dayana. Dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada oo ay ka mid tahay abaaraha ayaa sababay in ay qalasho dhirtii ku tiilay qaar ka mid ah gobollada dalka, ayna barakacaan xoolaheydii deganeyd deegaanadaasi. Si wax loogu qabto arrimahaasi, dowladda Ingiriiska ayaa Soomaaliya u qoondeysay 4.5 milyan oo looga hortagayo aafooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada. Taageeradan dhaqaale ayaa loogu dhawaaqay safaaradda Ingiriiska ee Muqdisho, waxaana ka hadlay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya. Xalka ayuuna ku sheegay in loo baahan yahay dhir badan in la beero. Safiirka dowladda Ingiriiska u fadhiyo Muqdisho iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa dhir ku wada beeray gudaha safaaradda Ingiriiska kulan saxaafadeedka kadib, si ay tusaale ugu noqdaan dhir badan oo Soomaaliya lagu beero. Maxamed Ibraahim Bulbul, Universal TV, Muqdisho.